marnaba ha u ogolaanin in qof ku liido ama ku dareensiiyo inaad qiimo lahayn. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku abuuray, wuxuuna ku abuuray ujeedadaas inaad caabudo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. Jin iyo ins uma abuurin ilaa liyacbuduunii. qof inuu guulaystaa waxaa ka horeeya fashil aad dhibsato, balse guul lama taabtaan ayaa ku xigi doonta insha Allah markay noqoto. adiga waxaa laga baahan yahay inaad sabarto. qofka cilmiga leh hadduusan Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaynin, akhlaaq uu lahayn, qofkaas waa sidii dameerka kale. waayo waxaa arkaysaa qof professor ayaa arkaysaa oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaynin. wejigiisa markaa fiiriso, weji quruxsan buu leeyahay, balse qalbiga ayuu ka xun yahay. qalbigiisa iimaan ma buuxo. in aad la muranto qof jaahil ah waa sida adigoo kanaaco daankaaga ka dilayo kale. kanaacada daankaada saaran dil ama ha dilin, balse ugu dambaystii adiga ayaa isdharbaaxi doontaa. ogolow naftaada inay dhacdo haddana kacdo, waayo aragnimadu waxay ka timaadaa markii aad dareento dhibaatada meesha ka haysato. xal baa u heli kartaa markaad dareento dhibaatada iyo caqabada meesha laga haysto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala hana siiyo taqwo dhammaystiran, caafimaad wanaagsan. waxaan ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qulubteena noo hagaajiyo. aamiin aamiin.